dhacdooyin dhowraa nabiga qabsaday sala allahu alayh wasalam oo dad isku wada nooca ka imanayay hal erayoo halku dhigana uu ku soo celcelinayay oon isleeyahay cashir weyn bay noqonaysaa mujtamacu markuu muslim yahay qofkuna dadka muslimka ah mas-uul ka yahay ma dhici karto mujtamaca gudaha inuu wada muudhis suuban wada noqdo ma dhacdo in dad wada jecel oo taageersan noqdaanna ma dhacdo siduu u maareeyay nabigu alayh isalaatu wasalaam qadiyadii munaafiqiinta oo isagana si shaksiya dhib gaara ugu hayay muslimiintana dhib badan ku hayay isku dayo badan oo waxyeelo oo sharaf iyo naf inay u geystaanna isku day oo la dhihi karo mucaarada daakhiliya ama dad gudihii ku nool oo shacabka iyo raciyadiina ka mida sheeganayana inay dadkaagi yihiin dadkaagi inay yihiinna dibadda looga yaqaano iyagana dhib taagan ah nabig alai slam maalin maalmaha ka mida ghaswatu bani lmustaliq ama muraysiic markay saxaabadu aadeen nabiguna la socday xadiidka jaabir ibn cabdillahi bukhaari iyo muslim baa ceel biyo laga cabayey baa laba nin isqabteen markay isqabteen nin ciyaar badan baa nin haraatiyey meeshii baa buuq ka dhacay xiisaddii laba koox baa loo kala jabay yaalal muhaajiriin yaalal ansaari baa ka dhacay nabigu markii la soo gaarsiiyey wuxuu yihi dacuuha fa inaha muntina waxaan waa un qabyaalad magacyadu ha fiicnaadeen laakiin saad u isticmaasheen qabyaalad fool quran wax uraya weeyo qurana iska daaya warkii wuxuu gaaray nin hogaaminayey kacdoonka gudaha ah oo madaxa munaafiqiinta cabdullahi ibni uy ibni saluul la yidhaahda ninkii wuxuu yidhi masaasay sameeyeen carabi horey u tiri aygaaga cayiri kadib ha ku cuno nimankaan soo dhoweyneen madiine ku soo dhoweyneen ba annaga hadda lafayagana cunaya lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal haddaan madiine ku laabanno annagaa ka awood badanee masaakiintan dulliga ee tabartana waan saaraynaa ninkaasi wuxuu ku dhawaaqay dagaal gudaha laakiin markii waaqica la yidhahda awooddeeda ma laha wuxuuse turjumaad bixiyey colaadda uu qabo wuxuuna abuuray xiisad gudaha markii la ogaaday nabigaa loo yimid oo cumar baa u yimid rasuulka ilaahi ninkan munaafiqa ah aan madaxa jaroon qoorta u caseeye ugu fasax buu yidhi nabi wuxuu ku yidhi laa yataxaddathu annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba ku sheekaysan maayaan dadku maxamed baa dadkiisa saxaabaysa laynaya innagaa og wuxuu yahay laakiin dadka kalen diinta ugu yeedhaynaayey ma oga ninkan wuxuu yahay hadhow haddaan dillo dad odayaaloo asxaabtiisii ah buu dilay dadka diintay ka caydhinaysaa dadkii soo socday diinta soo gelaya haddaad gashana ku badbaadi maysid baa la dhahaya marka innagu dhibkan gudaha ah oon ognahay inaan la tacaalo baa ka fudud in dhibka ay bannaanka iyo magac xumada ay inaga gudbinayso marka inagu waxaan dhibsanayeynaan eegine aan eegno diintan magaceeda iyo sharafteeda dhibka soo gaaraya maalinkaa maalin bay ahayd maalin xunayn la joogo maka la furtay oo ka dambaysay nabigu khanaa'imtii xunayn buu qaybinayay nin baa u yimid cumarna waa la joogaa wuxuu maxamed cadaalad samaysadeen cadaalad ma aha si cadaalada xoolahan u qaybi fainaka laa tacdil caadil ma tihid buu yidhi dadka cadaalad ugu qaybi wax cumaroo nin kulul ahaa ya rasuulka ilaahi ninkan iidaa isagana munaafiq weeye aan madaxa jare nafs alkalima ku soo celinayso laa yataxaddathu annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba haddaa maka la furtay hadkay ghaswadii xunayn iyo dagaalkii daa'if iyo awtaas iyo dhaceen mujtamacii hadda soo islaamay baa taagan oon qaarkood weli islaamin ramako isdhiibay oo madaxdoodii ka mid yihiin
waxaa jooga reer Thaqiif oo hantidii iyo xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii ka qaxay oo rajo laga qaba inay soo noqdaan oo islaamaan. haddii hadda ay dhacdo kuwii gudaha la laynayaa mucaarad yaroo dhacay, dadkaasoo dhan bay diinta ka didin. marka tan anigu unba wax iga sheegay aan iskaga dulqaadana dhibka gudaha aynu eegna, dad badan baa diinta soo gelaya yaan laga didin. Tabuuk markii laga soo noqday, nabi fi saxiix muslim wuxuu sheegay ummadayda waxaa ku jirta 12 munaafiqan, 12 munaafiq baa ku jirta. 8 ka mid ah ilaah baa idinka kaafin oo halkana wax ka soo bixi, dabiile nabar ka soo bixi doonaa, qalbiguuna u daadegi doonaa, kansar iyo wuxuu garan maaye. 4 kale lama sheegin. xadiidka waa xadiidka fi saxiix muslim, Camaar ibn Yaasir can Xudayfa. riwaayad Tabaraani fi al-Mucjam al-Awsat ku ziyaadiyey waxay leedahay markaan Tabuuk ka soo soconnay, meel 2 buuro beel yar gaaban buuraho gebi dheerna ku yaaloo nabigu ka dayey bay 12 nin ugu dhunteen si ay habeennimo mugdi intay ugu soo didaan hasha ula boodoos meesha uga dhaco u dhinto. markaan aragnay adugu ilaahay waa ka badbaadiyey. Camaarow ma garanaysaa buu igu yidhi buuri nimanka. maya, laakiin gaadiidkaan wada gartay buuri. nimanku waa afduubnaayeene gaadiidkoodaan garanayaa. ninka awrka la gartay dad kooban oo socda, isagiina la garay soo maaha, isagiina la garay. maalinkaas haddana waxaa leeyahay nabi rasuulka ilaahi kuwan maanlayno. wuxuu yidhi laa yataxaddathu annaasu anna muxammadan yaqtul. markaas kow Tabuuk baa la tegayaayo jasiiradda carabta waa israacday. laakiin islaamku islaam jasiirad carab ma ahee caalam kaliya dagaalkaa Tabuuk iyo waa aakhirka xayaatadii nabi alayhi salaam. dowladihii Roomaanka yaa la isku dhacayaa, quudihii waaweynaaye neeto iyo Warsa oo kaleetaa fooda la isdarayaa, dadkoodiina risaalaa la gaadhsiinayaa, fariimaa la dirayaa. dhacdadan si xun baa looga faa'iidaysan, warar xun baa la tabin, shayaadiin badan baa jirta, dad xun baa kugu dhex jira, dad si xun baa loo fasiri. 3 mawqif oo mar naftiisa in la dila la rabay, mar saxaabada inta la isku diray haddana loo hanjabay Madiina markaan ku noqono dagaal baan idinku qaadaynaa la yidhi. mar isagii la yidhiba cadaaladba ma tihidoo diintiisiba la toomay. intabana la yidhi dadkan aan ununka jarno. wuxuu laa yataxaddathu annaasu anna muxammadan yaqtulu asxaabah. munaafiqiinta in la daayaayey intaa iyo nusuus kale marka dhacdooyin kale marka la isku daro oo la weydiiyey, 2 arrimood buu nabigu ilaalinayay. mid waagii hore u ilaalinayay ee Madiine la yimid oo ninka odayga ka yahay suldaan ama boqor ama ugaas buu u caleema saarnaa in lagu caleema shubo, xataa taajku waa tollaa marka nabigu imanayay. marka nabigu yimid baa laga kala dareeray. ninkii cuqdad buu qaaday boqortooyadiisii in laga kala daadiyo laga qaatay. raggii tolkii yahana nabigu waa u sheegeenoo waxay rasuulka ilaahay arrintaasuu ku margadayo halkaa uga degila. oo kursi baa la iga qaatay buu leeyahay, kursi baa la iga boobay, weligeed way socotaa meel walba. kursiga la kala boobana wuxuu ka khatar badan yahay xilo la kala boobo iyo xoolo la kala boobo. xukun la kala boobaa ka daran. xukunku dee ninku aabbihii iyo walaalkii iyo ilmihiisu dili. marka xukunku balaaye waaye, waa maandooriye sarqaan ah wey, uu saraasan yahay qofku. ninkii sidaas ahaayey qabiil buu ka dhashay, dad buu oday u ahaa, nin magac lahoo la ammaano u ahaa. waaba ninka qabaa'il dhan oo Madiino dhan u diyaarisay boqor midaye inuu noqdo. ninkaasi dad badan baa taageersan, diintan dad badan baa gabanaya oo hoosta ka neceb Badar intii ka dambaysay. ninka haddii wax la yeelo fitno badan oo hoosay abuuri oo ka daran in loo dulqaato dhibkeeda. waxaa ka daran mid hoosu abuuri. xataa dad wanaagsan baa xumaani, inay xumaanayaanna waa la tijaabiyey. maalinkii ghaswata xaadiثadii ifkigii been abuurkii uu isagu sameeyey ee qur-aanku soo degay ee nabigu yidhi war nin reerkaygii xataa dhiibkaysu gaaray yaa iga qabta. ee qoyskiisii mooyeen qoyska kala dhaheen waana la garanayay. annaga hadduu yahayna waa noo sheegayo halkan aan kaga qaadayna. hadduu walaalaha iyo qoys kale ka dhashayna amar baadna sii waan fulinaynaa. rag fiicnaa baa yidhi habartaa kuma dhacdo. dagaal bay isu gacan qaadi gaaraa ka dhaca ilaa nabigu kala deji. waa dadka khayratu saxaaba ah. arrinta
reernimada iyo mujtamacu shaydaanku meeluhu kiciya ka faa'iidaystay ka mid tahay taasoo kale qabyaalad iyo wax badanoo haddana mujtamac carabtu mujtamac qabiil bay ahayd sida soomaalida oo kale saas darteed ninka haddii la taabto kacdoonka iyo dhibka uu abuurayo dhacdhaciisa in loo dulqaato nabigu walidaalika cumar baa waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi wiilkiisaa u yimid nabiga wiiluu ninka dhalay rasuulka ilaahayow waad ogtahay carab ninka abihi ugu baarisan baana abbaa wuxuu samaynayna waa arka qof kale in la dilu mutay hadduu qof kala dilo hadhow isma hayn karo waan xasuusanoo qofkii baan dili waan ku akhriseeyey aniga ii fasax aabbahaysaan cidna kale ugu edin anaa madaxiisa kuu keeni wuxuu yidhi may aabbaha baari u noqo wiilkan qalbigiisu ilaalinaya hadhow waxbaa ku soo kaci aabihii markii la faro cumar iyo rag lamidana waagii dambe ninkii oo intii la wada ogaaday dhurwaa dharaar ciyey ah gabadh iyo waayeel iyo yar iyo waayeel ba la bartay oo keligii oon cidna wax ka dhigin allah waa kii laleeyahay buu arkay cumar uu ka warran buu yidhi haddaan waagii dili lahayn rakimat lahu unuuf dad badan baa intay xanaaqaan u cadhoon lahaa hadda laakiin cidna wax kuma falayso isagaba iska macno beelay ayaamtii cashir buu barayey dadku qaar waxaa jira deyntii oo dulqaad kaga dhib yar inaad la dagaalanto taa gudaha nabigu waa ilaalinayay tan dibadda ana waa ilaalinayay marka waxaa lagaa rabaa haddaad hoggaan u tahay kana mucaarad iyo qab kala duldhac iyo kana waxaan laga hadlaya waa munaafiqiin fi darki alasfali min annaari ah waxa ka sokeeya iska daa marka nimanaan diintaba rumaysnayn oo gaashaan ka dhiganaya oo diintaa la dagaalamaya oo jaajuusaya oo qoladan isku soo diraya ghazwatul ahzaab soo abaabul intaana la ogyahay oo nabiga gurigiisa caayay oo isagii cadaalad ma tihid oo inay dilaan isku dayay oo isku diraya dadkii waxaasoo dhan ka shaqaynaya haddana waxaan wax ka weyn waxaan wax ka weyn eeg way nabigu dhaqankaa wuxuu ina barayay haddaad ummadda hoggaan u tahay daacad ku wada noqon mayso wada toosnaan mayso marada waxay leeyihin tol wada toosan ninkii raba tol la'aan buu baxa reerka oday u tahay wada toosnaadaan rabto ma wada toosnaanayaan inbaa kugu taagnaan inbaa mucaarad kugu ahaan inbaa xumo ka shaqayn inbaa dhib taagan ah ninna qabashuu ku fiican yahay midna si kale in loo macno diluu ku fiican yahay waxaad samaynaysaa haddaba marna eeg gudaha u eg marna dibadda u eg waxaad samaynayso waxa ka dhalanayaa la eega tii nucmaan ibn bashiir ee xadiidka aan kaga hadalnay axaadiistu way isu tegayaan tan laakiin waa tarbiya dhaqan camali oh ciddii hoggaan haysatee awoodna lehee tallaabo qaadi karta keliya xoog baan leeyahay tallaabaan qaadi karaa ma aha keliya qofkan waan aamusiin karaana ma aha waxay u baahan tahay wax badan oo tixgelin badan mudan oo magac iyo sumcadna la ilaaliyo iyo sharafta koran laga ilaaliyo gudahana qofkan wax sameeyey dad kaloo badan oo lagu xeeriyey inay jiraan garaa mujtamaca qabaa'ilka sida mujtamacaadkeena soomaalida oo kaleeta cashir uu samaysiinayo wey nabiga alayhi salaam aan isleeyahay in waayo badan laga faa'iidaysto ee u baahantay